كماليد عافمات كماليد هذه قلنا إني كوسيسنا كماليد حتى وحبرشة كماليد حكومة ويصدق يصدق ويبحنيه وحكومة المودرنكا حكومة وحا كل هذا هي أمننا كيشة كل هذا عدالتنا كيشة كل هذا إن نبت كيشة كل هذا أنت أصلا بحنا أنت أصلا أيام بحنا ورتكو قبل إن الجيش أنا حنون كهايا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا عرق بناك هذا كقب أباي كقب بناكو يا لا ده يعني نحرس مال ورنا قال إلهي كعبسة إنك وعى لا إله ورا وكسو جدا كقبو أباي كقبو kaas wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda dowladda dan qaran xasan macalin oo ujeedaan wuxuu ku leeyahay xukuumadda xaq uguma lihid in caafimaad xaq uguma lihid waxbarasho xaq uguma lihid taasuu leeyahay halka waa hadda kilibka lagu soo qabtay Soomaaliya ku soo qabatay waa gabar laga soo cayriyay isbitaal banaadir ku dhali lahayd oo dariiq u dhashay waxay arrintaas u dhacday dhawaan bay dhacday dowladda dan qaran oo madaxweynaha ka yahay Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha uu ka yahay Xamse Cabdi Barre wasiirkeeda cadaaladana uu yahay Xasan Macalin ka hadlayay uu leeyahay dowladda xukuma leeyahay waa sadaqo dowladaha caalamku service ay bixiyaan dhammaystiran dowladdu meel bay joogtaa marka dowlad shacabkeeda saa ula hadlaysa oo dadkeedii shacabkeeda wasiirkiisa ula hadlahayo oo ra'iisul wasaarihii saa ula hadlahayo qaabka ula hadlahayo oo madaxweynihii waxaad aragteen ku sameynahayo ayaa waxay leedahay waxay leeyihiin waxaan qabanaynaa doorasho qof iyo cod waxaan qabanaynaa marka shacabka dooranaya dowladdaas madaxweyne xashan wuxuu dooranayo wasiiradiisu noocaas yihiin ra'iisul wasaarihiisu noocaas yahay doorasho qof iyo cod ayaan qabanaynaa oo xor iyo xalaal ayaan qabanaynaa habdhaqankaasna waa leeyahay waxaan leenahay marka dadka Soomaaliyeed oo soo jeedaan waddankoodana u jeedaan caqliguna kama teginin dad maskax liitana maaha dadka Soomaaliyeed dad maskax la weey qofku markuu doorasho qof iyo cod ka shaqeynayo waa inuu ku kaambeyn gareeyo wax sharaf oo dadka Soomaaliyeed self loo qabanayo laakiin inaad qaabka u dhaqantid doorasho qof iyo cod aan ka shaqeynayo aad tiraahid oo xor iyo xalaal aan ka shaqeynaa tiraahidna إنك أسمع معي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.